waxaa tahay madaxweynihii labaad ee taariikhda xildhibaan abadi ah noqda kadib aadan cadde madaxweynaha hadda jooga maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu si weyn maalmahan u maamuusaya iyo maalmo horeba madaxweynihii koowaad ee wadanka uu yeesho aadan cadde isagoo oo dhowr mar sheegay inuu ku daysanayo sidee isku qabanaysaa dhaqamada madaxweynaha hadda jooga iyo sheegashadiisa ah in uu leeyahay habkii iyo dimuqraadiyaddii aadan cadde waxaan rabaa su-aasha adaa keentay waana sheegay haddii qaraata xataa waxaan rabaa madaxweynahan dadka soomaaliyeedna aan rabaa inaan u sheego madaxweynahan xilligiisu dhammaaday markii ugu horreysay oo hadal marin habaabina dadka u sheega maaha maalintii la dooranayo murashaxa ayuu ka soo bilaabay qofkii shabaab soo shiidan 100 kun siinayna gurigii dumaan dhisaa kii rabaan dibadda u diraa waxa uu ku soo kaambeyn gareey ka mid been ma eed mas'aan dadka Soomaaliyeed bararta inay dhagahooda iyo indhooda ismaqlaan rabaa midaan uu sheegay been waa aadan caddoon raad ku lahayn shaqo ku lahayn aadan cadda ceebayn waay inuu farmaajo u dhahay aadan caddan ku daysana hal talaabo oo aadan cadda raadkiisii ah oo madaxweyne farmaajo uu qaaday malaha aadan cadda on the record waay madaxweyne la yaqaano taariikhdiisii ka baxay waqtigiisii markuu dhameystay la dooran waayay xilkii wareejiyay xagga fariista baar iska tacbaday ee beledkiisa dhinac ka joogo ah war beledkii joogi laanahay beledkii inaan joogna xataa nolol diidan yahay meelan aadna aanoo garin mogta marka madaxweyne aadan cadde waa run madaxweyne xushmad leh karaamo leh ku daysi la waaye laakiin madaxweyne farmaajo inuu aadan caddan ku daysanaya dhaho aadan cadde ceeb ku tahay markaagii waqtigaagii teeramkaagii aad joogtay aadan cadde ma aadan weynayn jirin oo xafiiskaaga kuma aadan dhajin sawirkiisa waa ku dhaganaa laakiin sidoo isagu markuu dadka qaabilay madaxweynuhu u dhagan yahay sidoo u weynana oo dadka u tusinayo adigu ma fursada dayacdo ma dayacin aadan cadde xushmadulaayan siinay meesha mudnaa ku magacawnay maalmihiisii aan dhowrnay dadkiisii aan dhowrnay laakiin daqiiq isku qarin nin raba inuu qiiq isku qariyo aadan cabdulla cismaan magaciisi kaarka inuu ku xogto nin aadan cabdulla cismaan kaar lagu ma xoga karo aadan cabdulla cismaan madaxweyne la yaqaano taariikhdiisa ay qoran tahay on the record tahay waa ninkan inuu gadaal uga soo dugaalo raba dadka Soomaaliyeed waagii loo sheegi jiray beenta waa soo dhamaatay siyaasaduna sideedaba been ma aha siyaasaddu been ma aha munaafiqiin ma aha siyaasadda run sheegid waay haday qaraar tahay xataa marka siyaasiyiinta kalena kuwa sidaas oo kale wadadaas inay qaadaan rabaan ha ka daayaan waxba war adiga la imaa wadaatadaada aadan cabdulla cismaan waa la yimid taariikhdiisa waa u qoran tahay inaad inta ka martay taariikhda aadan cismaan waxba ka bedeli mayso waa u qoran tahay ammaanay leedahay dadka Soomaaliyeed oo dhammaan yaqaan caalamka yaqaan waa la yaqaanaa hay'ada caalamka organizations kuwa weyn caalamka wax ka soo abaabulay oo rekoorkooda ku qoran yahay yaala waxba lagama bedeli karo war adiga midaada suubso mid sax suubso oo biri ka tagto caana hele ha ku rafanin muxuu ahay dad kale waxay samaysteen mar hore